السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دواada daawadayaal waa mar kale iyo xalaqad kamida barnaamijkeeni golaha buugaagta. Toddobaadkan buuga martida noo hayaan akhriyayno waa runtii buug aad iyo aad u qiimo badan. qiimihiisu wuxuu ka imanayaa inuu yahay buuggii koobaad ee af Soomaali ku qoran ee aan ka soo deeyno golaha buugaagta ee akhrikiisa in la wadaagno. Ahmiyadda buugga waxay ka imanaysaa in qoraaga buuggu uu u qoray qaab xusuus qor ah oo uu qoray maalmihii uu joogay xamar oo la kulmay dhimasho iyo dhaawac iyo burbur iyo Soomaalida nolosheedii oo dhammaan isbedeshay una hareeyay mugdi iyo nasiib darro. buuggan isbuucan in la wadaagayo magaciisu asalkii wuxuu ahaa English, Out of Mogadishu, a memoir of civil war in 1991 ayaa English lagu dhahaa. waxaa af Soomaali u tarjumay Ustaad Boodhari Warsame oo ku tarjumay kalahaadkii Muqdisho xusuus qorkii dagaaladii sokeeye 1991. buugga waxaa qoray Yuusuf Maxamed Xayd oo aakhirkii 40 ku dhashay baadiyaha Wardheer gobolka Doolo ee deegaanka Soomaalida. kadibna yaraantiisii meelo badan waxa ku soo bartay sida Herar, Dirdhabo, Muqdisho, Mareykan iyo meelo kala duwan. kadibna noqday agaasimaha TV-ga ee Soomaaliya, sidoo kale noqday agaasimaha radio Muqdisho. Yuusuf buuggan wuxuu bilaabay 30kii December oo ah markii khalkhalka uu bilowday ilaa iyo 16kii January. waxa weeye waa muddo 2 isbuuc ah ama 2 toddobaad gudahood wixii dhacay ayuu Yuusuf buuggan ku qoray. runtii labadaas isbuuc ee uu magaalada joogay ee uusan ka qaxin Kismaayo uusan u qaxin ayaa Yuusuf wuxuu nala wadaagay burburkii iyo baaskii iyo baaba'ii iyo halaagii iyo dhiigii iyo dhaawacii iyo hanjabkii ku dhacay ummadda Soomaaliyeed oo aysan qofna sawiranaynin in ay sida ay isu leynayaan, isu gumaadayaan, isu dilayaan, wax walba oo wanaaga oo ka dhaxeeyay sida ku ilaabayaan. inta aan marka buugga aanan gudihiisa gelin ayaa waxaan rabaa runtii inaan aad iyo aad u amaano Boodhari Warsame, Maxamed Yuusuf iyo Garanuug oo ah daarti buugga daabacday. taas waxay ii geynaysaa inaan wax yar aan ka hadlo ahmiyadda iyo muhiimadda ay leedahay in wax la tarjamo oo af kale laga soo guuriyo, af kalena loo gudbiyo. tusaale waxaa noogu filan markii ay islaamku ay ahaayeen hormuud ay u ahaayeen adduunka xagga sayniska, waxbarashada, suugaanta, aqoonta iyo in la helo oo aadamuhu ay hore ugu socdaan culumta cusub. waxa ay wax badan ka faa'iideen Greegi iyo Bershiya iyo Mesopotamia iyo xitaa Shiinaha iyo aqoontii taale ay islaamku soo qaadeen. Baghdad baa la keenay, waa la tarjumay. kadib markii ay muslimiintu ay qabsadeen ama ay tageen ama ay gaareen Yurub, gaar ahaan Spain iyo Portuguese, Yurubna ay ku nooleed xilligii mugdiga, Yurubiyaanku waxay ka faa'iideen oo aad u tarjumeen aqoontii iyo xogtii ay ka heleen muslimiinta Andalus ku noolaa. waxyaabaha ugu muhiimsan ee aadanuhu uu leeyahay waxa kamid ah wadarta loo wada leeyahay aqoonta iyo cilmiga. maanta waxa ka dhaca Brazil ama aqoonta taala Cuba ama mid taala Mareykan ama mid taala China iyo Yurub waxa kaliya ee haddaan Soomaali ahay aan ku fahmi karo haddaan luqaddu ku qoran yahay aan garanaynin waa in wixii aan helo qof ii tarjuma. waxa la dhahaa heesaha oo kale uma baahna in la tarjuma sababtoo ah heesta waxa gudbinaysa music. hees laga qaado Haiti ama hees laga qaado Angola ama hees laga qaado Kuuriyada Waqooyi uma baahna in erayadeeda aan fahmo. waxaan u baahnay kaliya in music soo jiito. sadarteed waxa arkaysaa dad aan garanaynin heesay luqadoodii oo dhageysanaya oo daawanaya oo waliba ka helaya. laakiin wax allaana wixii ku saabsan ama suugaan ama aqoon ama saynis ama waxyaabaha kale ee aadanaha aqoonta u yaqaano waxay u baahan yihiin in la tarjamo. tusaale ahaan ganacsiga xuduudaha wuxuu soo gudbaa sharci ayuu ku gudbaa. maanta markii aan Soomaaliya wax soo saarto ganacsiga ama Kenya u dhoofinayso ama Djibouti u dhoofinayso ama Ethiopia u dhoofinayso, markay borderka geyso waxa borderka ganacsiga dhaafinaya waa warqad iyo heshiis dawladaha u dhaxeeya. saasoo kale waxa gudbinaya aqoontii ummadaha kale u gudbinaya waa in tarjumaad la helo. marka tarjumadu kala duwan tahay waxaa jirta tarjumad akadeemiga oo jaamacadaha iyo waxyaabaha ku saabsan qofkii inuu tarjumo. waxaa kaloo jirta in la tarjumo iyadana sayniska. waxaa kaloo jirta marka in la tarjumo suugaanta, waana mid ugu muhiimsan sababtoo suugaanta waxay kaga duwan tahay intii hore oo dhan
inta hore waxaad la tacaamulaysaa qoraal ama nas aan u baahnayn dareen ama aysan ku jirin dareen ama xisaab ha ahaato ama cilmi baaris ha ahaato laakiin marka aad literature ama suugaan aad fasirayso waxaad u baahan tahay inaad ku noolaato dareenkii qoraaga dareenkii qofku waxa soo gudbinaya dareenkii suugayahanka saa darteed baa in ama gabay luqad loo turjumo ama hees loo turjumo ama riwaayad iyo sheekafaneed luqad kale loo turjumo ay tahay waxyaabaha ugu adag inkasta oo qofka tarjamaaga uu haysto xorriyad aysan waajib ahayn inuu xaraf xaraf u turjumo ay tahay inuu faham guud oo dadka ka siiyo intaas markaan kaga baxo mahadcelinta runtii boodhari warsame maxamed yuusuf iyo garanuug kadibna aan caddeeyo in aan u baahannahay in ay Soomaalidu ay ku baraarugaan ahmiyadda iyo muhiimadda ay leedahay in wax la soo turjumo Soomaalidu ay maanta ay u heelayeen oo ay u ahan qabaan in ay helaan qof wax u turjumo oo ay akhriyaan runtii kadib markii aan qoray buuga guure waxa aan garwaaqsaday in ereyga Soomaalidu wax ma akhriyaan ay tahay erey laga tagay oo taariikhdu ka tagtay Soomaalidu waxay leeyihiin buug ay ka helaan oo wanaagsan oo kadib ay akhriyaan qof kasta oo Soomaali oo buug tayo la qoray uu garan karaa jawaabaha iyo ma garanaysaa rad ficiliga u imanaya in ay tahay wax aad u wanaagsan oo farxad gelin kara inta kadib buuga Kalhaadkii Muqdisho waa buugga ugu wanaagsan ee aniga xasan ahaan aan ka akhriyay dagaalkii sokeeye ee Soomaaliya runtii buuggaas wuxuu ii furay albaab aad u weyn oo markii hore iga daasoonaa wuxuu i siiyay xog aan u baahnaa waxaan la noolaa 16 bari oo qoraaga buuggaas maalin walba maxaa saa ka dhacay maanta maxaa dhacay duurkii maxaa dhacay caawa maxaa dhacay see la isu laayay see wax u dhacay jabkii Soomaalida ku imaaday sidee buu uu kaga sheekeynayo buugga oo 15 ciwaan ka kooban ayaa wuxuu ka bilaabayaa qoraaga buugga Yuusuf Maxamed Xayd Allah siiyo cimri dheer oo hadda aan filayo inuu ku nool yahay Mareykanka ayaa wuxuu ka bilaabayaa in subax uu ku waabariistay xaalad caadi ah oo magaalada Muqdisho nolosheeda caadiga ahayd ay ku jirto oo suuqa lagu gadayo khudaartii lagu gadayo dharkii gaariyada ay baxayaan samaacadihii waaweynaa heesaha baahinayay ay sidoo heesaha u baahinayaan ayaa shaqadii baa laga qaadaya TV-ga iyo radio Muqdisho wuxuu aad ayaan u xanaaqayaa waxaan u tagayaa markii la ii sheego in shaqadii TV-ga laga qaaday ayaa waxaan aadayaa wasiirkii warfaafinta oo markaa ku cusbaa oo in adeerkii u dhiibay burburkii dawladda Soomaaliya waxaa la socday in wax walba la qabiileeyo oo qofka markii wasiir laga dhigo wax walba uu xukumo reerkiisa u dhiibo maanta waa arrinta jirta sababtoo ah wasaaradda waxa iska leh qoyska wasiirka صراحة حتى مركي لا soo qorayo waxa leeyahay Hebel waxa la siiyay wasaaradda Hebel markii waa la siiyay dhamaaneed waxa way aniga waxa u shaqo tagaya wasiirka reerkayga wasaaraddu haysto dad markii laga feeriyo akhlaaqiyan ilaa aan ka gudubno nidaamkan aan qabiilka wax ku qabsanayno dhawaa la dhihi karaa qofku uu ku saxan yahay sababtoo ah markii aniga reerkayga hal wasaarad la siiyo oo wasiirka la aadi karin inaan iyadii shaqo u doonto waa sax laakiin taa waxay curyaaminaysaa hor socodkii ummadda waxay curyaaminaysaa wax wada lahaanshihii waxay curyaaminaysaa in qofkii tayada lahaa laga shaqaysiiyo booskii munaasabka ahaa kadib wuxuu leeyahay wasiirka ayaan u tagayaa anoo garnaqsanaya oo u sheegaya in la dulmiyay in qabiil laygu fogeeyay waxyaabo la mid ah wasiirkiina ima garaabin kadib Yuusuf wuxuu ka sheekeynayaa macna in uu sameeyeen wax walba la aado dagaalada la sheegay inay sii xogeystaan iyo inay baabaan oo si jecleen maadaama asaga shaqadiisa laga qaaday waxyaabo badan ayuu ka sheekeynayaa Yuusuf oo taariikha horaan ugu soconayna waxa kamid ah markii ay dagaaladu bilowdeen ayaa uu sheegaya in ay dawladda iyo jabhadihii la dagaalamay oo ugu tun weyneed USC ay aad u gumaadeen dadkii dagaalo lagu hoobtayna ay runtii ay ka dhacdeen dagaalku markuu Muqdisho ka qarxay wuxuu leeyahay dawladda Soomaaliya way ogeed in Jawhar la qabsaday Muqdisho la soo galayo laakiin marna ismeel lahayn jabhada yar oo qabaa'il yar oo Mariya Calasa oo aan tababarnayn oo hub fiican aysanin ayaa ciidankii militariga Soomaaliya awood aragtay lahaa hilfa u qaadaya baabi'inaya kala eriya jabhaduna waxay filayeen in nidaamkan qabaa'il isu haysta ee kala irdhoobay ee kala fogaaday ee cabsida ku dhisan uusan u babacdii karin oo durba dagaalkii la soo afjaray kadib wuxuu markuu dagaalkii sii adkaaday oo waqooyiga magaalada oo dhan ay qabsadeen jabhadihii ayaa waxaan isweydiinayay tolow madaxweynaha muxuu hadda sameeynaya wuxuu leeyahay madaxweynuhu ma ahayn nin u nool xoolo ee wuxuu ahaa nin u nool xukun tusaale ahaan wuxuu leeyahay Maxamed Siyaad Barre wuxuu ka qatanaa wax walba oo raaxa ah wuxuu yiri masidiisii ayuu bun aad u madow cabayaa
kadib markuu kharaarkiisa u dul qaadan waayeen uu biyaha isaga dejinaya ma sidiisii ayuu sigaarka iska dabashadayaa daqiiqad walba talow hadda wuxuu ku fikirayaa yuusuf maxamed xayd wuxuu noo sharaxayaa laba mar oo madaxweynaha uu la kulmay mar waqti badan ma ahayn laakiin markii waqtigu badan ay soo helaan waxay ahayd mar loo soo bandhigay iyagoo aqoon-yahan iyo qorayaal Soomaaliyeed ah in la qoro taariikhda madaxweynaha Maxamed Siyaad Barre oo markaa loo arkay aabaha ummadda Soomaaliyeed hogaamiyaha kacaanka ninka kaliya ee aqli leh ee fikir leh ee Soomaali u xurin kara wuxuu yiri in badan ayaa sugaynay kadib uu noo imaaday meel cid uu fadhiyay wax la socday ma laha kursiga uu fadhiyo waa kursi duuga oo dhamaada daaha ku xiran meesha uu fadhiyo waa daaha aan isla weeraan dhowr sano ayuu meesha ku xiran yahay wax raaxa kama muuqanin meesha wasiiradiisa guryahooda markaa tagto ay ahaayeen qasri lagu raaxaysto oo wax walba adduunka yaalo u yaal waxa la isweydiin karay ninkan aan nolosha ku raaxaysanaynin muxuu ku isugu dhajinaya Culays Siyaad Barre dadka ku hareereysna ayaa laga yaabaa ama ay ahayd kuwa ka faa'iideysta ku raaxaysta hantida ay dadku lahaayeen asaga laakiin waxa ku filayd oo kaliya in uu yahay qofka kaliya ee aragti leh ee aqoon leh ee aqli leh ee garaad leh ee wax sheegi kara laguna daba faylo waxyaabo la yaabka waxa kamid qofku markuu dictator yahay wuu la yaabayaa in qofku aragti ka duwan uu qabi karo sababtoo wuxuu soo arkaa inuu yahay aabihii ummadan ilmaha dhashay inuu ka aragti duwanaado ma ogolid saasoo kale ayuu ahaa Siyaad inaan ogolayn in laga aragti duwanaado kadib ayaa wuxuu ka sheekeynayaa dhacdooyin badan waxaas ugu muhiimsan oo runtii aan soo jiitay mar uu ka sheekeynayo sida ummadii Soomaaliyeed ee diinta lahayd ee dhaqanka lahayd ee akhlaaqda lahayd hal mar aragti oo hal qaba darteed dhaqankooda oo diintoodii loogu bedelay hanti wadaag iyo shuuciyad iyo waxaysan garanayn waxyaabaha aadka naxdinta u leh waxaa kamid ah in marka qaar wax walba oo dhaqan laga tagay tusaale ahaan wuxuu yiri waxaana lagu xareeyay xerada xalane markii lagu xareeyay ka hor ayaa waxaan soo kaana keenay anagoo 800 oo qof ah ama 700 midkood ay dad ku dhow ayaa waxa la soo kaana keenay meel xero ah dhammaan wala la qaawiyay dadka halka qaawan ee taagan waxa ku jira wiil iyo sadogi waxa ku jira wiil iyo abihi waxa ku jira wiil iyo abtigi waana la qaawiyay anagoo qaawan ayaa la yiri nin walba ha foorarsado wuxuu yiri marka ma diidi kartid waa 1972 hadii aad diido waxa tahay kacaandid waxa tahay dib u socod iyo waxyaabo la mid ah oo aad ku mutaysan karto xarig dil iyo shaqo ka qaad inta aad ku mutaysan karto wuxuu yiri marka halkaan la geeyo ma aanan lahayn wax rabitaan ah waxaan ka tagnay aadanimadii waxaan naga guuray xishoodkii nin walba oo halka taagan daqiiqada wuxuu jeclaa inuu dhulku la go'o ama uu halkaas uusan imanin laakiin ma aan lahayn runtii ma aan lahayn rabitaan iyo diidmo midna ma aan lahayn qofku inuu diidmo yeelan waayo oo ku dhac yeelan waayo oo ma yeelan waayo waxa keeni karta in xorriyadda Ilaahay uu ku abuuray qofka laga qaado oo la geeyo meel uusan qofku fikiri karin aragtina uusan lahayn kadib ayaa wuxuu ka sheekeynayaa markii xalal la geeyay iyo dhibaatadii meesha taalay iyo tababarada adka ay galayeen iyo kacdoon badan oo runtii ay sameeyeen oo iyo gabayo ay runtii halka ka tiriyeen oo marka shakhsiyaadku soo qaadeen waxa kamid ah General Aadan Gabiyo waxa kamid ah madaxweynaha waxa kamid ah wasiirka waxbarashada dad badan oo meesha imaadeen iyo gabayo laga tiriyay nolosha meesha ka jirtay waxaan sameynay kacdoon aan ku diidanahay nolosha kaasoo ahaa markii koobaad ee kacaankii sir muuqata loo amar diido kadib waxaan ogahay Maxamed Siyaad Barre madaxweynihii wuxuu codsaday gabaygii meesha aan ka tirin inaan u sheegno qayb kamid ah gabaygii ayaan sheegnay kadibna ciqaabtii iyo dhibkii rafaadkii waan laga qaaday nool caadi ayaan noolayn marka uu ka sheekeynay marka Maxamed Siyaad Barre ayaa wuxuu leeyahay Maxamed Siyaad Barre wuxuu ahaa qof sida Soomaaliland ahaan jaahil ah waxba baranin waa run inuu sadhiganin taaliim nidaami ah tusaale ahaan dugsi hoose dhexe sare jaamacad iyo wax la mid inuu sadhiganin laakiin wuxuu ahaa xilliga ayada ah nin si fiican u yaqaanay Ingiriiska Talyaaniga Sawaaxiliga af Carabigana ilaa iyo xad macquul ku hadli jiray Siyaad Barre wuxuu ahaa nin aad u yaqaan dhaqanka Soomaalida nin si fiican ay ugu fadhido fahanka siyaasadda inkastoo uu leeyahay siyaasadda markii la fiiriyo wuxuu ahaa nin buunbuuniya ama ka badiya awood ay Soomaalidu leedahay wuxuu arkay inuu meel walba qabsan karo wuxuu arkay inuusan cidna u baahnayn aragtidaas Soomaalida waliba ku sii jirta qofka Soomaaliga waxa laga yaabaa laami yar oo dhagax yar lagu shubay ayuu buunbuuninaya asagoo oo u arkay inay tahay horumar aad u weyn wali waxaan ku jirnaa nidaamkii hore waxyaabo badan oo nasiya kamid ah waxa kamid in adoon waxba qaban lagu amaano oo maanta jeclaata ayaa kamid ah Yuusuf oo ku sii socda buugiisa ayaa waxyaabaha ka sheekeynay waxa kamid ah kala aaminaad bixid markuu dagaalkii sii adkaaday oo ciidamada USC ay qabsadeen waqooyiga magaalada Muqdisho SNM ay qabsatay in badan oo kamid ah waqooyiga Soomaaliya SDF ay gashay goboladii la dhigi jiray Majarteeniya SBM ay Jubbaland iyo dhulkaas ay gashay iyadana ayaa wuxuu ka sheekeynayaa marka wixii ugu xuba ay meesha ka dhacay gabar ayaa waxay u shaqeynaysaa xaafadda muddo aad u dheer
ilaa ay ka mid noqoto gabadhii qoyska ay ka mid noqoto maalin ayaa wax soo kacay buu yidhi hooyadii iyo walaashay iyo dadkii xaaskayga oynaya waanu imid oo maxaa dhacan ku yidhi waxaa la ii sheegay inay batuulo ay tegayso batuulo waxay deganeed buu leeyahay agagaarka degmada Afgooye waxaa lumay halkaas waxaa lumay kalsoonidii qofka Soomaaliga qabay gabadhii muddada dheer naga mid ka ahayd ee guriga ku soo kortay ee ku soo qaangaartay ee ku soo weynaatay maanta ma aamini karto inay aan ila noolaato wuxuu halka waxa ku lumay in qofka Soomaaliga uu jid maro asaga oo gadaashiisa fiireen ama aan cabsi qabin halka waxa laga yaabaa qofka dibadaha ku nool inuu ku baraarugsaneen laakiin maanta qofka Soomaaliga ee magaalooyinka Soomaaliya nool jid ma ku marayo boqol mar ayuu gadaal fiirinaya waxa luntay kalsoonidii waxa luntay farxadii waxa luntay dadnimadii waxa luntay qofka Soomaaliga oo nolosha ku raaxaysto ayaa gabi ahaanba naga luntay markaan u sii gudubna qaybaha gudaha ayaa wuxuu ka shaqeynaya dhibkii runtii meesha ka dhacay iyo jabhadihii sida ay dhibka u geysteen wuxuu si isla eeg dhibka ugu qaybinaya jabhadihii Soomaalida ahaa iyo kacaankii waxa kale oo meesha ku jirta sida ay ugu fashilmeen aqoonyahankii Soomaalida in ay xal gaaraan waxyaaba buugu sheegay waxa kamid ah in ay Soomaalidu ay ka filayeen dad ajnabi ah sida Masar sida Mareykan sida reer Yurub in ay dagaalka xal u heli doonaan oo xalin doonaan kadibna ay Soomaali u bixi doonto baraare iyo walaalnimo aragtida maanta ay taagan tahay qofka Soomaaliga ah si uu nabad ugu noolaado ama uu dawlad u helo waxa uu leeyahay beesha caalamka maxay tiri dawladda dariska maxay qabaan Mareykanku muxuu yiri wali waxa ku noolahay liididii iyo daciifnimadii shakhsiyadda qofka Soomaaliga Yusuf wuxuu ka shaqeynayaa asagoo deganaa African Village ayaa wuxuu ka shaqeynayaa maruu aaday suuqa bakaaraha waxyaabaha ani aad soo jeeday kamid tahay wuxuu suuqa bakaaraha tagay si aan u soo gato waxaan maqlayay buuq iyo qaylo iyo sawaxan mar walba sii dhawaado sawaxanku sii ziyaaday markaan meesha tagay ayaa waxaan arkay dad goobo ama daa'ira ama circle ku jira oo ciyaaraya dadka aad bay u farxsan yihiin jaantii jibta isla heleen sacabka iyo qaylada iyo sawaxanka isla heleen waxay ku farxsan yihiin oo u dabaaldegayaan jaran laciidid iyo USC oo markaas qabsatay in badan magaalada Muqdisho ka mid ah dadka wuxuu yiri farxadda ay ku ciyaarayaan iyo sida ay u jidbaysan yihiin ayaa waxaan barbar dhigay buu yiri 1960 Soomaalidu markii ay xornimada qaadatay qofka Soomaaliga wax walba oo lahaa oo wadar ahayd مسؤولية وزارات درين وزارات ودنيا وزارات كل ويبقى بعضي وهو قبائل كدتك ودرس كها مقدشك وضن نولا أي أمريكا وحيد تمنيين أم أي شعلستين إن أي أركل هايين إيه ودرس كودا فرحات كل النول وهو أمريكا جبهده سواء قالن جودها مجال مقدشو ماشي الربي إن جبهدي أي قبضته حكومك أو أي تكتو جوبه أو أي جشو وزارته وحيقول نقاقين بربر وحيقول نقاقين بلقو تاسو حليك راقب وحكلها دولتي دكتاتور كهيد أو ضد كان تستي إن يسوحن إيه والهين wax walba uu leeyahay maxamed siyaad bare mar in kastoo la dhigi karo marka dadku marka ay burburinayeen wasaaradaha ay dhacayeen wakaaladaha ay gubayeen xarumihii dawladda waxay la dagaalameen siyaad bare haddana dadkii soo galay ee jabhadaha ahaa ama ha ahaato SPM ama ha ahaato SNM ama ha ahaato USC ama ha ahaato kuwa kale ee la midka ah SDF waxa ay ahaayeen dad ka tagay insaaniyadii oo aysan wax sharci ah ama wax fikir ah ama wax siyaasada aan lahayn qabqablayaashu nin walba wuxuu kicinayay reerkiisa waxa uu abaabulay qoyskiisa waxa uu sheegay tulkiisa asoo u sheegay in xukunka markay qabsadaan ay raaxo iyo qandaraasyo iyo wanaag iyo barwaaqo ay ku noolaan doonaan marna dadka kalameyn hadlin in dagaalkan uu ku dambeyn doono guuldaro in dagaalkan uu ku dambeyn doono dib in dagaalkan uu ku dambeyn doono in ay Soomaalida ku noolaadaan 30 sano oo qaxa iyo kala adkaansho la'aan waxyaabaha la yaab kale waxa kamid ah uu sheegayo in jabhadihii ugu awood badnaa USC markay magaalada soo gashay aysan tusin mas'uuliyad dad badan oo waxa jira dagaalka intiisa badan markay USC magaalada qabsatay waxay u wajahday qabiil meeshii ay USC la dagaalami lahayd dawladda ayaa waxay la dagaalantay daaroodku in badan oo asaga kamid ah soo buugu sheegay ama haato majarteen ama haato ogaadeen iyo qabaa'ilo kale aysan dan iyo aaba kala hayn siyaad bare iyo xukunkiisa bal ay mucaarad ku ahaayeen oo jabhada dagaalama ay lahaayeen meeshii marka ay jabhadii ugu tunka weyneed ay dadkii soo dhaweysan lahayd oo tusi lahayd inay yihiin dad xukun raba xukunkana sax uu ku yahay sababtoo waa Soomaali xaq ay u leeyihiin ayaa dagaalkooda waxay u bedeleen argoosi taas kaligoodna ma helay jabhad walba oo dalka ka jirta ayaa saa u bedeshay SNM oo kale markay qabsatay waxay laysay oo ama meesha ka shaqeynayay ama xil hayay ayay gumaadeen waliba iyagoo u socda dhulka Soomaali galbeed iyagoo u sii cararay ay laayeen sidoo kale jabhadihii kale daaroodka markay meeshii ay dhulkoodii tageenna dad badan oo Soomaali ah oo ama xitaa daaroodka naftiisa ah ayay laayeen sida uu sheegayo SPM wuxuu sawirayaa buug runtii xaalad aad iyo aad u murugsan waxa kamid ah in muuqaal aad ani runtii ii taabtay in uu maalin arkay uu soo maray safaarad uu soo maray Kuuriya safaaradda Kuuriyada waqooyi
oo dumarkii oo dhanna intii hoos la geeyay la kufsanayo raggii oo dhanna kor intii la geeyay la garaacayo oo jirdi loo geysanayo qofkii Soomaaliga wuxuu isweydiinayaa marka ilaa iyo goorma ay Soomaalidu hamajinimadaas iyo waxshnimada ay Soomaalidu gaareen waxyaabaha uu buuga sheegay waxa kamid ah in Soomaalidu ay aad iyo aad ay ugu tiirsanaayeen masaarida wuxuu yiri maalinkii safiirkii Masar uu ka baxay Muqdisho waxay ahayd maal mugdi ah Soomaali badan oo qoraaw kamid yahay waxay qabeen aragti ah inay masaaridu ay xal keeni doonaan ama jaamacad carabta ka kaashadaan ama adduunka ka kaashadaan aysan Soomaalida garabkeeda banin doonin laakiin ma aha markii koobaad haddaan taariikhda dib ugu laabano markii gumeysiga Ingiriiska uu imanayay dhulka Soomaalida gaar ahaan waqooyiga Soomaaliya waxa joogeen ciidamo masaari ah oo dawladda khadawiinta ah kadib markay soo galeen ma iska caabin sameeyeen Soomaalida ma caawinin tartiib u baxeen heer bay tageen kadibna ka sii baxeen waxyaabaha uu sheegay waxa kamid in magaaladii muraayada ummadda Soomaaliyeed ahayd ee aad ku qurux badneed ee Muqdisho ahayd ay noqotay magaalo nal ku dasan yahay isgaarsiin aan lahayn xog aan lahayn taa waxay xusinaysaa in buugu uu leeyahay dhacdooyinka aan qoray aniga waxa laga yaabaa in sidii ay u dhaceen aan u qorin sababtoo ah dagaalku markuu bilowday isgaarsiin oo dhan way go'day TV ma jirin oo idaacad ma jirin oo telefoon ma jirin qofka laga yaabo intuu lugeeyo inuu meel kala tagana runtii aad iyo aad ayay u adkeed waxyaabahaas la yaab kale waxa kamid ah wuxuu yiri waxaan u lugeeyay waqooyiga magaalada si aan u soo booqdo seedigay oo halka deganaa wuxuu marka aan isgoyska Siinaay marayo ayaa waxaan galay yiri meed Soomaaliyeed oo jidgooyo laga dhigay isbaara laga dhigay meedkii waa la soo saaray jidgooyo laga dhigay wuxuu yiri meedku wuu kala go'ay qaar way dilaaceen qaar xiri baa galay qaar aad iyo aad bay u qarmunaayeen qofku wuxuu isweydiinayaa marka maxaa uu qofka Soomaaliga u dagaalamaya wuxuu rabo qofka Soomaaliga waa maxay jabhadaha dawladii riday maxaa ay u dagaalamayaan maxaa ay rabaan buuga oo runtii aan isleeyahay waxa ay waajib ku tahay qof kasta oo Soomaali bal inuu akhriyo si uu u arko wixii dhacay oo qabiil walba qayb ku lahaa burburkii dalka Soomaaliyeed muuqaalada runtii in la soo gudbiyo mudan waxa kamid ah wuxuu leeyahay wasiiradii Soomaaliya nolosha aadka maaragtay hodanka ugu noolaa guriga qasriyada waaweyn ku noolaa beeraha leh baraagaha leh boqolaalka qof ay waardeeyaan iyo gabdhihii maalin Paris aad jiray maalin Dubai ku soo raaxaysan jiray maalin Mareykan maalin Yurub ayaa waxay soo tageen guriyo aan lahayn daaqad aan lahayn albaab musqulo baraambar iyo carab miiran ah oo ay la wadaagayaan waardigii staafkii iyo dadka aysan hore isu arki jirin waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo saddex mowqif midka koobaad waxa weeye Yuusuf wuxuu ka sheekeynayaa in mar walba uu aadi jiray safiirka Masar gurigiisa uu aadi jiray wuxuu safiirka marka aan la hadlayno wuxuu naga wareysan jiray xaaladda dalka anaga wuxuu xog kama haynin ama sabab ha u ahaato anagoo markii horeba aan laga qayb galin xogka dalka iyo soo socda waxba laga weydiinin iyo ama ha ahaato xog yarida ka jirta isgaarsiin la'aanta laakiin wuxuu yiri waxa la yaab ahayd in anaga dalkanaga xaaladiisa aan ka wareysano qof ajnabi ah markaan gurigiisa tago dalka suu yahay xageeb u socdaa xaaladda ka waran ayaan dhihi jirnay taas waxay xusuusinaysaa in qofka Soomaaliga ah si kasta oo qool u leeyahay oo la garaad yahay oo la wacyi yahay qofka ah oo baran qofka Soomaaligu kama duwanaan kara badan ama kama soconaan karo ama hormuud gaar ah uma noqon karo inta badan qofka jaahilka ah bulshadu qofka Soomaaliga waxa aad u saameeyo deegaanka ku nool yahay ayaa aad u saameeysa qodob kale waxay tahay wuxuu yiri Soomaalida markii dagaalka dhacay hawiye iyo daarood iyo raxweyn iyo isaaq wax loo kala baxay dadkii ugu badnaa dagaalamay wax isgaarsiiyay waxa ahayd daarood iyo waxa ahayd hawiye daarood ka dib badan hal gaarsiiyay magaalada Muqdisho iyaguna meelo kala dhib ah ku gaarsiiyay dadka laakiin waxay haysteen buu leeyahay dad difaaca ay haysteen dadka aadka ay taabtay waxa kamid ah dadka banaadiriga ee magaalada deganaa ma aysan lahayn ayuu yiri dad ciidan ama askar iyo dabley difaacada markii ay meelihii deganaayeen ku noolaan waayeen ayaa inta is urursadeen ayaa waxay haweenkii caruurtii geeyeen masaajiday geeyeen raggiina masaajidka ay banaankiisa istaagay saawanku difaacaan raggiina qaarna waa la laayay qaarna waa la jirdilay haweenkiina masaajidada loo galay oo laga soo bixiyay oo lagu kufsaday oo lagu dilay qaar ayaa laba maalmood saddex maalmood kadib ay soo laaban jireen iyaga oo runtii si xun loola dhaqmay maalin ayaa wuxuu yiri waxaan ka istaagay waxaan ku tukaday masjid ku yaala Madiina markii aan salaadii dhameynay waagi hore Soomaalidu way iska imaan jireen masjidka subaxa wuxuu nool boqori buu isu difaaco oday qaab culimo u labisan ayaa istaagay waxa uu ka sheekeeyay xalay in asagii xaaskiisina banaanka la keenay laba gabdhood oo dhalayna kufsanay qeylood oo wali ka seexan wuxuu yiri caawiye cid caawi karta ma leh cid xitaa daniinaysa ma leh dhowr shilin ayaa loogu tuuray wuxuu yiri mara yar oo meel u taalay kadibna waa laga wada tagay asagoo cid u danqanaysa aysan jirin qoraagu wuxuu ka mid yahay dadka dagaalada ay saameeyeen dagaalka waxa ku dhintay walaalkii
iyo wiil uu dhalay oo maday ah oo wiil kale uu sadalay dagaal ku dhintay wuxuu yiri labadoodu waxay ka shaqeyn jireen ama walaalkii wuxuu ka shaqeyn jiray in meel walba meedku markuu daadsan yahay dhibaato badan ay dhacday ee meedkii la aasi waayay in mawlaca macalin nuur ayuu joogi jiray halkaas asaga iyo xer kale ay intays abaabulaan ay meedka aasi jireen asagoo wuxuu aaminsanaa aad buu u ahaa mujadiin aad buu ahaa nin sheekh diinta aaminsan wuxuu ka shaqeyn jiray kacaan ka hor wasaaradda arrimaha gudaha kadibna kacaankii ayaa shaqo joojin ku sameeyey ilaa 1969 shaqo la'aan ayuu ahaa kadibna kacaankii oo daarood ah ninka wuxuu ku waayay inuusan taageersanayn kadibna USC oo hawiya waxay ku dishay inuu daarood yahay yani qofka Soomaaliga ah waxa laga yaabaa mowqifkaas oo kale in qof hawiya ah ay dileen daarood asagoo wax saameyn lahayn ama qof isaaqa ay deeli mirifil dileen yani qabaaisha Soomaalida sida ay isu dilayaan ayuu ka sheekeynaya waxaan ku soo gabagabeynaynaa mowqif intii aad iyo aad u adag oo dagaalka dhan soo koobaya Soomaalida wuxuu yiri waxaan soo aaday African Village meeshuu deganaa gaarka naadiga horseed ayaan soo maray maalin waxaan arkay buu yiri meyd aad iyo aad runtii u naxdin badan qaarkood dixiri galay qaarkood dilaacay qaar fuuro wali dilaacin qaar milil u ka daayay iyo malax wuxuu yiri meydka qaar waxa laga gooyay dhagaha iyo sanka iyo xubnaha taranka kadib afka iyo dabada ayaa maaragtay ayaa laga guray dumarka qaar markii la kufsaday ee la dilay ayaa farjiga waxa laga geliyay dhagaxaan iyo bateriyo Soomaalidu waxay soo laayeen si aad iyo aad u xun dawladdu dadka ka soo horjeeda madaafiicda ay ku asqeynayso uma kala aabayeelin jabhadaha ka soo horjeeda dadka ay dilayaan uma kala aabayeelayaan wuxuu ku sugtay qoraagu in la dilo maalin asagoo meel uu qamaraya oo socda ayaa qori lagu qabtay kadib waxa la yiri sheeg qabiilka tahay oo ah aqoonsi kaliya qofku xilliga lahaa waxaan yiri waxaan hay Soomaali mar dambe kugu celin doonay wuxuu yiri sheeg qabiilka hadii kale oo ku dilaya kadib intuusan go'aankii dilka qaadanin ayaa nin agtiisa taagan uu yiri iska fasax oo iska siitaa waxaan u qaatay ninkaas inuu garanayo sababtoo ninka oo ahaa maareeyihii ama agaasimihii radio Muqdisho oo ahaa kadib saas ku badbaaday ugu dambeyntii wuxuu ku soo gabagabeynayaa buug oo 206 page wuxuu ku soo gabagabeynayaa in hal mar uu waayay 20 sano wixii uu soo dhisay oo dhan uu waayay in uu u qaxay magaalo uusan waligii garanayn waa Kismaayo kaliya wuxuu ugu qaxay in ay degan yihiin qabiil oo asaga u nasab sheegto markii Kismaayo tageen dadkii asaga qabiilkiisa ahaa maanta Muqdisho hayb loo dilay markii Kismaayo tageen iyaga ayaa hayb kale isu sii dilay wuxuu leeyahay halkaas jabhadii SBM ee joogtay dib badan ay ka geysatay buu leeyahay jubooyinka soo qoraagu sheegayo intaana dhameyn waxa ku jira sheekooyin dhaxtaal ah oo badan ayaa ku jira oo ka sheekeynaya dawladaha oo ka sheekeynaya qoraaga waayihiisa oo ka sheekeynaya meelo wuxuu ku soo bartay oo ka sheekeynaya sheekooyin runtii qosol leh maadaama murugo maanta ka sheekeynayay ballan sheekadan aan iyadana wax yar ku daro wuxuu yiri waxaan daawan jirnay kubadda cagta aan daawan jirnay hooyadii wuxuu yiri wuxuu ka shaqeynayaa hooyadii iyo si uu soo korisay iyo baadiyihii iyo biyo la'aantii ka jirtay kadibna nolol aad iyo aad u adag inay baadiyaha ka soo mareen hooyadii ay soo qaaday in badan ay u soo socdeen abaar dhacday kadib caynaba ceelka caynaba markay tageen oo dad badan iyo duunyada soo dhamaadeen abaar markay joogeen kadib hooyadii sii qaaday burcay geysay burcay ka sii qaaday berbera ay geysay berbera ay ka qaaday herer ay geysay herer wax ku soo bartay oo adeerkii oo ganacsado ahaa oo maalqabeen herer joogay la noolaa hooyadii waagi dambe shil ayay gashay intaas luqunta ka hoos waxa ka dhacay marka shalal ayaa kaga dhacay oo barales ay ahayd inta kaliya ka nooleed buu madaxa saas oo hooyadu waxay nolosha ku faraxsaneed dagaalada markay dhaceen runtii aad iyo aad ay hooyada u ahayd qof aad u xigmad badan sida hooyinka Soomaalida ay yihiin waayo hooyinka Soomaalidu dumarku waa dadka ugu wanaagsan gaar ahaan xilliga dagaalka sokeeye dumarku waxay noqdeen laf dhabar bay nolosha u noqdeen maalin anoo kubadda daawanay wuxuu yiri ayaan hooyadii waxaan fahansiin waayay in 22 nin oo waaweyn oo mukallaf ah oo wax garanaya ay jildi ama wax la buufiyay ay daba ordaan oo isku dilaan oo isku rafaadiyaan waxay tiri hooyo mid walba intuu markiisa qaato birtaayar uu dhaliyo maxay isu dilayaan isu waxaynayaan runtii wuxuu ka sheekeynayaa sidii hooyinka Soomaaliyeed ay uga fogaayeen wax badan oo kamid ah fahanka nolosha adduunka ee marka magaalada ku cusbaa aad iyo aad baad mahadsantihiin waxaan rajeynayaa inaan mar kale isugu imaan doono xalaqo cusub iyo buuq cusub